waaxda farsamada ee dekedda magaalada Berbera ee loo yaqaano Amtida oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Berbera ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xuquuqda ay ku leeyihiin dekedda Berbera. geesta kale waxa ay fariin u direen xukuumadda waqtigeedii dhamaaday ee muddo kordhinta ku fadhida waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. horta qaybtan waaxda farsamada waa qaybta ugu shaqada badan dekedda waana qaybta gaadiidka iyo hantida dawladda ka mas'uulka waana lafdhabarta koobaad ee dekedda. haddana ma moodid imiga in wax kale la isku haysto waxaad moodaa in la isku haysto barxadda dekedda oo waxa dul yaala iyo waxa keenay midnaba aan cidi danaynaynin. marka waa la ansixinayaa hadhow laba ansixi baa la yidhi kii ansixiyow ummaddu waxay xuquuq lahayd iyo shaqaaluhu waa laga rabaa waana laga doonayaa waana nu doonaynaa ugu yimi waxa weeye waa shaqaalihii dekedda oo nooc walba leh amtida weeye kuwa halkan taagani baarlamaanka waxaan u sheegayaa markiina horeba inay xaaraan ku fadhidaan oo aydan sharci ku fadhiyin saxeexa wax saxeexayna inay waxba ka jirin dekeddan Berberina inay ka godo 20,000 oo nin oo gobolkan saaxil ku nool ayuun bay ka godaa maadaama xaaraan ku fadhideen xaaraanna ku ansixiseen waxbaba uma aragna nagu taawrta mid kalena waan ku darayaa waxa weeye halkan waxa ku jira mujaahidiintii oo iyaguna fara badan oo ilaa 300 nin gaadhaya waxa weeye filimka dushaanu ka daawanay anagu sida dadkii aanu soo dagaalamay u soo dhibaateeyay loo galayna waan aragnaa annaguna go'aan baan qaadanay idinkuna go'aan baa qaadateen halkana rag baa ka taliya qaar baa jiray ilaa SNMT ahaa oo u soo dhaawacmay oo u soo dhintay oo u naafoobay meeshan naafa iyo ciyaal iyo cid waliba way joogta dalka xuquuqdiisa in laga taliyo ayaana wanaagsan. haddaba waxaan leeyahay maanta shaqaalaha iyo haddaan u soo noqdo dekedda Berbera waxa lagu xisaabtamay waa sibirka iyo barxadda in shaqaali la ilaawayba ayaa aniga iga muuqata halka weyne cid walba ummadda dadkii u hidlaynka haday sidan karteen mushkiladeeday leedahay laakiin anagu midun baan ka hadlaynaa hadda dawladii dad la soo heshiiseen dekedna aan dhisaysan idin badiidi mayne xuquuqda iyadu daaqada ha saaraato headline-kii ummadda hagilana haddaan dadka ciduu maqlay idinkuna aad sidan tihiin mushkiladeeday leedahay waxaan ka hadlaynaa maanta anagoo ah shaqaalaha dekedda Berbera qaybta waliba farsamada waxaan ka hadlaynaa xukuumadda iyo baarlamaanka aan maanta ka codsanayna u sheegaynaa in shaqaalaha maanta aan xuquuqdooda meelnaba aan lagu tiirin oo laga hadlay in dekedda farxadaas laga kala wareegay waxaan ognahay maanta shirkadda la yiraahdo Hamburg dekedda Axmed la wareegtay maalintii la wareegtay inay shaqaalihii ka daleysay ay u dhiibtay maaday ku xigay inta kala dibadda loo saaray xaqna aanay ka helin shirkaddan Jaabidi maalintii la wareegtay shaqaalihii way la wareegtay maanta waxa ka shaqeynaya Yamani hama waxaan ognahay kadalik warshada leerkii maanta shaqaalihii ka shaqeynaya xaquuq wax loo siiyay $200 kiis 10 sano ka shaqeeyay kiis sanad ka shaqeeyay anagu maanta waxaan leenahay shaqaalaha xaqooda hoos loo eego waxa la ansixiyay laakiin si cid waxaan ku leenahay hadalkii wasiirka ayun baad dhabaysay mustaqbalkaaga ku xirmaanta laakiin ku mustaqbal beesha Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.